bishii 11 sanadkii 1972 ayaa Amiina iyo odageeda Mooshe duulimaad diyaaradda alcaali Israa'iil ay ugu soo safreen Israa'iil soo dhaweyn aad u diiran ayuu lamaanahan kala kulmay Israa'iil waliba si gaar ah ayaa loo soo dhaweeyay Aani Mooshe oo dabca inay Carabiya tahay oo horay u sii cadeeyay soo dhaweynta ay lamaanahan kala kulmeen geegada diyaaradaha ee Lord waxyaab iyo qaadan waa ku noqotay Mooshe marba uu ku sigtay inuu u qaato inay xaaskiisu ay tahay qof aad u muhiim ahayd dalkeedii ama ugu yaraan shakhsiyadeeda la yaqaanay Mooshe waxa uu farxad la muunsooday markii ay isaga iyo xaaskiisu indhahooda isku dhaceen oo ka dheehday farxadan la soo koobi karin inay qabto Mooshe iyo xaaskiisa Amiina waxay degeen guri cusub oo ay dawladda u sii diyaarisay waxa uu ahaa guri ka samaysan loox u eg looxa ay ka samaysan yihiin guryaha yaryar ee miyiga Ingiriiska ka dhisanay waxa uu ku yaalay magaalada Rishon LeZion dhowr maalmood markii ay nasatay ayaa Amiina looga yeeray xarun ka mid ah xarumaha hay'adda ammaanka ee Israa'iil waxa la weydiiyay boqolaal su'aalood oo la xiriira dhalashadeedii halka ay ku soo kortay oo dabcan Urdun ahayd xaaladda qoyskeeda iyo asxaabteeda oo dhan waxa laga waraystay sida ay isku barteen Mooshe iyo guurkooda su'aalahan oo dhan waxay uga jawaabtay si kalsooni leh oo aanay waxa ka shaqo ku jirin waxa kale loo weydiiyay aragtideeda la xiriira jiritaanka Israa'iil iyo shuruucdeeda ku aadan dalkeedii hore ee Urdun waxa kale oo laga waraystay Falastiiniyiinta Urdun ku dhaqan iyo su'aalo la mid ah waxa ay baarayaasha Yuhuudda ahi sheegeen inay nacab tahay ururada xoreynta Falastiin iyo guud ahaan ururada kale ee Falastiiniyiinta waxayna ku andacotay inay qaladka ugu weyn ee boqor Xuseenkii Urdun galay uu ahaa inuu wada dili waayay Falastiiniyiintii Urdun ku nooleed iyadoo oo sidoo kalena ku celcelisay in ururada gobonimo doonka ah ee Falastiiniyiinta ay aad u nacab yihiin qowmiyadda Sarkishiyiinta xoogaga hubaysan ee boqor Xuseen uu ka saaray Urdun ayaa iyaguna gadooday oo gubay guryihii iyo dhismayaashii qowmiyadda Sarkishka reer Urdun waxay burburiyeen dhismayaashii iyo hantidii Sarkishka sababtii ugu muhiimsaneed ay Falastiiniyiintu u leynayeen Sarkishka waxay ahayd Amiina adeerkeed oo ahaa jenaraal ka tirsan ciidamada dalka Urdun oo ka dambeeyay ama hormuud ka ah suuqii foosha xumaa ee bishii 9 September sanadkii 1971 ciidamada Urdun dhulkooda kaga saarayeen Falastiiniyiinta dad aad u tiro badan ayaa si bini'aadantinimada ka baxsan loola macaamilay baaristani markii ay dhamaatay Amiina waxa la siiyay sharciga Israa'iili oo loo aqoonsaday in marka la siiyay laga bilaabo ay tahay muwaadinad u dhalatay dalka Israa'iil waxaanay saraakiishu u ballan qaadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan ee suuragalka ah shaqo fiican loo siin doono Amiina baadigoobkii dhalanteedka danka kale waxa sidii caadiga ah u socday qorshiga Mooshe ku imaanay Israa'iil oo ahaa inuu ku biiro ciidamada cirka Israa'iil Mooshe waxa uu gaaray darajada korneyl dooliye military oo ka tirsanaa ciidamada cirka Israa'iil tabayaaqadii sanadkii 1973 Mooshe diyaaradu u waday oo nooceedu ahaa Skyhow ayaa howlgallo saamina loogu diray hawada dalka Suuriya laakiin duulimaadkiisii koobaadba ciidamada cirka ee dalka Suuriya ayaa ku guuleystay inay soo ridaan diyaaraddaas Mooshe shilkan ayaa raq iyo ruux meel uu ku dambeeyay lagu waayay dalka Suuriyana waa uu ka gaabsaday inuu sheego waxa uu ka og yahay nolol iyo geeri warka ay ciidamada Suuriya ka baahiyeen dhacdadani waxa uu ku koobnaa in diyaaraddaas ay qarxiyeen iyadoo gudaha ugu jirta hawada dalkooda Amiina waxay rumaysan kari weyday warka diyaaraddan waxay gashay xaalad nafsi ah iyo khalkhal u ekisiiyay qof aan caafimaad ahaan fiyoobayn maalmo uu waagu ugu bariyo murugo iyo hoohin gabalkan ugu dhaco ayaa u kowsaday Amiina ee xaaladeeda ku soo rin weyday waxa la geeyay xarun lagu daweeyo xaaladaha nafsiga iyo xanuunada maskaxda ku dhaca oo ku taalay magaalada Rishon LeZion halkaas ayaana caafimaad ahaan loo dhigay waxa ku dhacay cudur nafsi ah oo ka xidhay hadalkii ama aynu niraahno shoog si ku meel gaar ahna waa musiiyay waxa la jiifay qolub gaar ah oo xarunta caafimaadka ka tirsanaa halkaas oo dhakhaatiirtu si gaar ah xaaladaheeda ugu dabiibayeen markii uu muddo bil iyo badh ah xaaladeedu sidan ahayd ayaa Amiina ay heshay waxtarkii dawooyinka waxaana dib ugu furmay hadalkii iyo xusuustii la xidhiidhay waxa dhacay markiiba waxay bilowday muran cusub oo ay ku andacoonayso inay ka shakisan tahay runnimada ah in Suuriya ay sheegtay in diyaaradda duuliyihii isagoo saaran ay qarxiyeen
iyadoo aan ka warramin geeri iyo nolol halka uu ku dambeeyay duuliyuhu. waxay ku dooday in ninkeedii Mooshe ahaa oo ahaa duuliye aad u xirfad badan, tababarro heerkeedu aad u sarreeya oo dhinacyada duulimaadka militariga diyaaradaha ahna uu qaatay, sidaa awgeed aan la diidi karin suurtagalnimada ah inuu ka boodo diyaaraddii intii aanay burburin. waxay sheegtay inay qabto dareen ah inuu weli nool yahay, kuna gabanayo dhulka beeraleyda miyiga u dhexeeya Suuriya iyo Israa'iil ama ku yaalla gudaha Suuriya. waxay fikraddan u sheegtay mas'uuliyiinta Yuhuudda oo ay arrintani khuseysay, iyadoo ku doodaysa in Mooshe uu yahay geesi intii karaam aadame ah isbadbaadin og. markii ay ka soo raysay, waxaa dib loogu celiyey gurigeeda, halkaas oo ay ku haysay gabar kalkaalisa caafimaad ah oo ay dawladdu ku mushaar siisay daryeelka Amiina. habeen iyo maalinba waxay ku hammiyi jirtay ninkeeda maqan. waxaa la arki jiray iyada oo isla maqan oo inta ay ka fikirayso ninkeeda ku haddaaqaysa erayo cod sare ah oo qof kasta oo u dhowey maqli karo. waxaa 10 jeer sii labalaabantay caradii ay horeyba ugu haysay carabta, oo ay u arkaysay inay mar walba yihiin kuwa madoobeeya bidhaan kasta oo ka soo ifta mustaqbalkeeda. waxay soo foortaartay quus kale oo ku abuurantay markii ay saragtay in mar labaad ay ku dhacday god madow iyo inay beenowday riyadeedii ahayd inay maroon carab ka fogaan doonto. Urdun iyo Austria ayay uga timid carab, iyada oo filaysa inay haatan Israa'iil ka bilaabi doonto nolol xasiloon. laakiin nambarkan aanay ka bogsan karin ee warwarka weyn ku haya waxa uu ahaa runta ay og tahay ah in Mooshe oo la waayaa ay ka dhigan tahay mustaqbalkeedii oo gabal u dumay. ma ay waayin oo keliya saygeedii ay jeclayd, balse waxaa dumay nolosheedii oo dhan. waxa wehel u noqday ciil baday inay marar badan ku hamido argoosi aanay maskaxdeedu sawiran karin sida ay u filin doonto iyo halka ay ka bilaabi doonto. midna waa ciirsi la'aan cidda ku xirani ay tahay dad aanay dhaqankooda, caadooyinkooda iyo afkooda midna toona aqoon. inkastoo ay ahayd inay nafteeda ku canaanato sababta halkaas dhigtay eersatana Yuhuudiga ay guursatay, iyo haddaba go'aankeedii ku khasbay inay u guuraan Israa'iil. saasba ma ay yeeli jirine inta ay waxaas oo dhan dhinac iskaga turtay ayaa ay eedda ku dhacday oo dhan ugu leexisay dhanka carabta. muddo markii laga warla'aa Mooshe, waxay Amiina ka codsatay mas'uuliyiinta Yuhuudda ee arrintani khuseysay inay u oggolaadaan inay safar ugu tagto Beyruut iyo Dimashq, waa caasimadaha dalalka Lubnaan iyo Suuriya, si ay u kala horreeyaan, si ay u soo raadsato saygeedii, bal in ay geeri iyo nolol midun kaga war hesho.